kulan wacan daawadayaal halkan waa janalka Hubal News qodobada wararka aad daawan doontaan waxaa kamid ah baabuur ay la socdeen wariyaal iyo xubno kale oo lagu qarxiyay gobolka Hiiraan iyo dagaal xoogan oo ka dhacay qayb kamid ah gobolkaasi wasiir Beelana waxa uu maanta ka baaqsaday inuu hortago xeer ilaalinta qaranka faahfaahin kala duwan waxa ay ka soo baxayaan xiisas siyaasadeed oo ka taagan Somaliland iyo golaha ammaanka oo balanqaad culus u sameeyay dowladda federaalka Soomaaliya qodobadaad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa warka janalka Hubal News fadlan daawada hadda nagu cusubtaa nagu soo biro kamid noqon saaxiibada hela wararka aanu ku baahina janalkan aragtidiina halka hoose nagu reeba muuqaalkana sii share gareeyo la wadaaga asxaabtiina laagtiina waa inoo dhiirigelin haatanna ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahin kala duwan ayaa waxa uu ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay qarax ka dhacay duleedka degmada Matabaan ee ka tirsan gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya kaas oo sababay dhimasho dhaawac qaraxan oo ahaa miino ayaa waxa lagu soo waramayaa in la eegtay gaari ay la socdeen wariyaal iyo askar sida ay noo xaqiijiyeen ila dadka deegaanka gaariga la qarxiyay ayaa kamid ahaa kolonyo uu watay gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo horkacayay howlgal ay ciidanka dowladda ka wadaan qayb kamid ah gobolkaasi inta la xaqiijiyay waxa qaraxaas ku dhinteen ilaa 3 qof oo mid kamid uu yahay darawalka gaariga halka ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan oo iskugu jira wariyaal iyo askar saarneed baabuurka la qarxiyay wariyaasha dhaawaca ah waxaa kamid ah Khalid Maxamuud Ilkaas iyo Cabdi Kariin Shabeelow oo labadaba ka howlgalayeen TV-ga Hirshabelle qaybtiisa gobolka Hiiraan sidoo kale wararka ayaa intaasi ku darayay in dhaawacyada loo qaaday magaalada Gurceel lana dhigay isbitaalka Sterling ee magaaladaasi dhinaca kale dagaal u dhaxeeyay ciidanka dowladda iyo al-shabaab ayaa ka dhacay deegaano hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan deegaanka Qabno ayaana waxaa horey ugu sugnaa xubno ka tirsan al-shabaab oo ay u taalabar control oo ay lacagaha qaadi jireen balse waxaa la wareegay maanta ciidamo ka tirsan kuwa dowladda waxaana la sheegay in al-shabaab ay weerar ku qaadeen ciidanka howlgalka wade dagaalka deegaanka Qabno ee hoostaga degmada Matabaan iyo deegaano kale oo ku dhadhow ayaa waxa warbaahintu u xaqiijiyay mas'uuliyiinta gobolka Hiiraan kuwaas oo sheegeen in howlgalka saaka gudoomiyuhu horkacayay ee u suura gashay inay kula wareegaan gacan ku haynta deegaano dhowr ah oo hoostaga degmada Matabaan dagaalkan oo ahaa mid xoogan ayaa sidoo kale waxaa la sheegay inay ku soo biireen ciidamo ka tirsan kuwa danab ee ka howlgala qayb kamid ah Galmudug kuwaas oo la sheegay inay ka yimaadeen deegaano hoostaga Galgaduud howlgalkan ayaa imaanaya xilli gudoomiyaha gobolka Hiiraan uu kol hore ka dhawaajiyay inuu al-shabaab ka sifeen doono gobolkaasi isla markaasna uu maamulkiisa xooga saari doono sidii go'doonka looga qaadi lahaa degmooyinka hoostaga gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya geesta kalena wasiir Beele waxa uu maanta ka baaqsaday inuu hortago xeer ilaaliyaha qaranka wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa waxa uu maanta ka baaqsaday inuu hortago xafiiska xeer ilaalinta qaranka kadib markii dhawaan warqad ka soo baxday xafiiskaasi loogu yeeray isla markaasna lagu balamiyay in 11 subaxnimo oo barqanimadii maanta ahayd inuu ku hor yimaado xafiiskaasi taa oo la sheegay in wasiirku uu ka baaqsaday kadib markii uu isaga laf ahaantiisa qoraal uu xalay soo saaray ku diiday warqadii loogu yeeray ee ka soo baxday xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka taas oo fareysay inuu hor yimaado xafiiska si wax looga weydiiyo arrimo ku saabsan maaliyadda dalka wasiir Beele ayaa cadeeyay inay soo gaarto warqadda xeer ilaaliyaha ee loogu yeeray balse wuxuu muujiyay inay ku jiraan qaladaad dhanka sharciga isagoo sheegay in arrintan uga dambeyn doono garyaqaanka guud ee dowladda sidoo uu qabo qodobka 3aad farqadiisa 2 xarafka B oo sharaxaya dhismaha xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda garyaqaanka guud ee dowladda wuxuu mas'uul ka yahay difaacidda dowladda iyo xubnaha u shaqeeya maxkamadaha hortooda ayuu qoraalkiisa ku yiri wasiir Beele wuxuu sheegay in isaga oo raacaya xeerkaasi kana digtoon in lagu xadgudbo mas'uuliyadda iyo waajibaadka garyaqaanka guud ee dowladda uu si xushmad leh ugu soo jeedinayo xeer ilaaliyaha in xafiiskiisa uu hogaansamo habraacyada iyo xeerarka la dejiyay ee loogu talagalay in lagu maamulo arrimaha dowladda iyo dalka ugu dambeyntii wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa qoraalkiisa ku cadeeyay in wasaaraddu ay diyaar u tahay in garyaqaanka guud ee dowladda ay la wadaagto wixii macluumaad ah ee xafiiska xeer ilaaliyaha guud qaranka uga baahan yahay wasaaraddaasi waxaana la ogeyn tallaabada xigta ee uu qaadi doono xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyo jawaabta ay ka bixin doonaan warkan ka soo baxay wasiir Beele
halka dowladda odayaa nagala socotaan waa Hubaal News. Faahfaahin kala duwanna waxa uu ka soo baxayaa xiisada siyaasadeed ee ka taagan Somaliland. magaalada Hargeysa waxa wali ka taagan xiisad siyaasadeed oo u dhaxaysa xisbiyada mucaaradka wadani ucud iyo xukuumadda Somaliland ee uu hogaamiyo Muuse Biixi oo isku hayaan arrimo doorasho oo maamulkaasi la xiriira. labada dhinac ayaa hawada isku marinayaan erayo kulkulul oo uga sii daraya xiisada ka taagan Somaliland iyadoo aan wali lagu guuleysan in wada hadal lagu dhameeyo. wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed oo ka hadlay munaasabad ka dhacday Hargeysa ayaa weerar afka ah ku qaaday mucaaradka gaar ahaan musharaxa wadani isagoo ku eedeeyay inuu foodo iyo kicin ka wado Somaliland. Cabdiraxmaan oo aan oranayaa haddii aan isqabanay oo fikir iyo aragti ku kala qaybsanay ma ahayn in aad dhalinyaro kicisaan iyo qeelo iyo huha aad sameysaan. Cabdiraxmaanow adiga Faysal Xirsi iyo labadiina xisbiba kama hadleyno sida aad xafladda qeelada ugu dhameyseen nabadda siyaasadda iyo deganaanshaha diyaar uma tihiin mas-uuliyiin arrin qaran doonaya in eedan ahayn baa muuqata ayuu yiri wasiir Maxamed Kaahin. dhinaca kale musharax Cabdiraxmaan Ciro oo isna hadal siiyay warbaahinta ayaa u jawaabay xukuumadda wuxuuna sheegay in xilligan aysan wada hadal diyaar u ahayn. sidoo kale wuxuu ugu baaqay inay kalsooni siiyaan odayaasha dhaqanka ee haatan ku hoolan dhexdhexaadinta labada dhinac. anagu axsaab ahaan waxaan madaxweynaha noogu dambeysay 24 May ina koorane uu fadhiyay habeenkaas meel la iskaga soo noqday may banaaneen 9 bisha waxaa jiray odayaal isku xilqaamay oo haldoorka ganacsatada iyo salaadiinta kamid ah way noo yimaadeen oo waxa ay naga codsadeen in aan hakino mudaharaadka oo ma warwareegin kalsooni ayaan siinay. waxaan leenahay horta odayaasha kalsooni siiya markaas buu wada hadalka iska bilaabmi doona ayuu yiri Cabdiraxmaan Ciro. dhankiisa gudoomiyaha xisbiga ucud Faysal Cali Waraabe oo ka hadlay xiisadan ayaa sheegay in muhiimadu ay tahay in la badbaadiyo mustaqbalka Somaliland lana qabto doorasho. maanta waxaa loo baahan yahay kubadda xaggeenu ma tahlo jin qofkii keena ayaa saara waxaanu isku haysanaa caruurtaas mustaqbalkooda oo aan waxbarasho iyo dhul atoona la siin balse lacagtooda la aruurinayo ayuu yiri Faysal Cali Waraabe. doorashada Somaliland ayaa ku waqtiyeysan 13 November ee sanadka 2022 waxaase mucaaradku ay ku eedeynayaan inuu Biixi ku hoolan yahay muddo kororsi si dib loogu dhigo doorashada. وهاجي داوديال imikana waxaanu eegaynaa golaha ammaankana waxa ay ballanqaad culus u sameeyeen dowladda federaalka Soomaaliya. golaha ammaanka ee qaramada midoobay gaar ahaan guddi u qaabilsan cunaqabateynta saaran Soomaaliya ayaa warbixin cusub ka soo saaray xaaladda Soomaaliya kadib isbedelkii siyaasadeed ee 15 May ka dhacay Muqdisho. guddiga ayaa sheegay in dowladda cusub ee uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu la shaqeyn doono isla markaasna ay la yeelan doonaan iskaashi xooggan. warbixinta guddiga golaha ammaanka u qaabilsan cunaqabateynta saaran Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka taageeri doonaan dagaalka Al-Shabaab gaar ahaan cuuriyaaminta hubka iyo dhaqaalaha ay hesho kooxdaasi. guddigu wuxuu taageersan yahay dowladda federaalka Soomaaliya iyo la howlgalayaasha inay sameeyaan dadaalo kala duwan oo lagu qalajinayo dhaqaalaha Al-Shabaab iyada oo la qabanayo lacagaha laga maarmaanka waa howlaha kooxda. dadaaladaas ayaana noqon doonaan mid wax ku oola oo kaliya marka la helo xog wadaag iyo wada shaqeyn dhab ah oo dhaxmarta dowladaha dariska iyo saaxiibada caalamka iyadoo la kaashanayo guddiga khubarada ah ayaa lagu yiri warbixintan. dhinaca kale guddiga ayaa walaac ka muujiyeen xaaladda ammaan ee Soomaaliya iyo weerarada sii kordhaya oo ay fuliyaan xoogagga hubeysan ee kooxda Al-Shabaab. waxaa kaloo warbixintan lagu soo qaaday arrimaha bini'aadanimada xadgudubka ka dhanka caruurta iyo kufsiga haweenka ee laga soo warinayo meelo badan oo kamid ah dalka. sida lagu sheegay warbixintan in ka badan 2600 oo caruur ayaa loo geystay xadgudubyo. sidoo kale wuxuu guddigu sheegay inuu jiro 50 kiis oo kufsi iyo noocyo kale oo xadgudub galma ah oo ay geysteen kooxda Al-Shabaab ciidanka dowladda iyo maleeshiya beeleed.
Soomaaliya oo gashay marxalad cusub kadib isbedelkii dhacay 15kii bishii hore ee May ayaa haatan la daalaa-dhacaysa xaalado bini'aadanimo oo ka dhalatay abaarta ka jirta dalka. guud ahaan daawadayaal wanageynta warkii oo aad kala socoteen Hubaal News fadlan daawade haddaad nagu cusub tahay ka mid noqo saaxiibada hela wararka aan ku baahino channelkan aragtidiinana halka hoose noogu reeba muuqaalkana sii share gareeya laagtiinana waa inoo muhiim waana ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka warka channelka Hubaal News. 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 News.